السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال ولي waxaan halkan ku soo gudbinayaa maqaaladii dhowrka ahaa ayaan ka soo qaatay taxanayaashii uu shabakada Somali Talk ku baahin jiray sanadihii horaantii 2000 taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. maqaalka uu ugu magac daray ururada Islaamiga ah iyo ciidamada shisheeye waxa uu Fahad Yaasiin barta Somali Talk ku baahiyay 22 February sanadkii 2005 isagoo waqtigaasi ku sugnaa caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi. mawduucan oo uu kaga hadlayo waxa uu ku tilmaamay duulaan ku soo wajahnaa waqtigaasi Soomaaliya iyo cidda soo duushay iyo sidoo kale fariimo uu u dirayay kooxihii Islaamiyiinta Soomaalida ayaa waxa uu maqaalkan ku bilaabayaa Fahad Yaasiin sidan: maalmahan waxa Soomaaliya ku soo fool leh duulaan gumaysi qaawan ah oo uu wado dalkii ay Soomaalidu 77kii harar agteeda u fadhiisatay, dhulkii uu Axmed Guri jihaadka dheeraa ka galay. qoladii sayidku khatartooda arkay ee uu jihaadka ku kiciyay waa gumaystihii madoobaa ee geeska Afrika wax ka deganaa. inaan magaciisa ku sheego uma baahnide adiguba garo. ururada Islaamiga ah ee Soomaaliyeed waa kuwa matala culimada. haddaba haddii dalkii 14 sano dawlad la'aan ahaa, shirkii caajiska badnaa ee Nairobina ay dawladii ka dhalatay, taladii ugu horeysay ee ay madaxdii dawladdu keenaana ay noqotay in Soomaaliya gumaysi hor leh gacanta loo geliyo. maxay tahay tallaabada u taala ururada Islaamiga ah? waddankeena waxaa ka jira ururo tiro badan oo wada leh islaamka ayaan u taaganahay. dalalka islaamkana inaan difaacno waa nagu waajib. waxaan rabaa in madaxda ururadaas iyo shacabka Soomaaliyeed isbarto si loo hubiyo waxa ka jira dhambaalada qurxoon ee ay dadka u sheegaan. sidoo kale in ummaddu ogaato in doorkii culimada qaarkood maqan yahay. haddii aynu si faahfaahsan u qaadaa dhigno oo aan ka bilaabo buuri qoraha maqaalkani Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, midkoodii hubaystaa uguna shacbiyada badnaa waa ururkii al-Ittixaad al-Islaami. ilaa iyo hadda lama hayo warmurtiyeed cod ah ama qoraal ah oo ay uga hadlayaan khatarta ciidamada shisheeye. waagii ay gada soo galeen askartii Itoobiyaanka ahayd waxaa la arki jiray rag idaacadaha ka hadla oo magacaas betela oo leh haddaanu nahay Ittixaadka waanu jihaadaynaa, ummaduna waa in ay istifaacdo. su-aashu waxay tahay maxaa hadda aamusiyey? goobihii ay ciidan ahaan iyagu u xukumayeen markii lasoo weerarayba waa ay qaylinayeen. hadeer oo dalkii loo soo socdo muxuu yahay mowqifkoodu? mise macnuhu waaba muraad aadan joogin aqbal ma ahan, oo ah haddii aynaan annagu dalka xukumin hawl noo taalla ma ahan. dadka qaar ayaa qaba in ururkaasi uu warqadiisii geerida waa hore qaatay, firxadkiisiina uu qaarba meel ku dhacay. waxaanse laga qanci karin ururku waxa uu ahaa culimo waaweyn oo ay bulshadu ka warsugto. haddii aanu ururkii weli jirin maxaa xanibaya culimadaas in ay hadlaan? al-islaax waa midka ku abtirsada dalladda weyn ee dunida ka jirta ee al-ikhwaan al-muslimiin. laantooda Soomaaliya ayaa la yidhaahdaa al-islaax. waa niman siyaasadda aad u xiiseeya, hankooduna uu yahay sidii ay dawladda u gaari lahaayeen. wadaaddo masaajidada fadhiya inay noqdaan waxay ka jecel yihiin in ay ka qayb galaan golayaasha bulshada looga arrimiyo. sidii ay u bilaabantay hadalhaynta ciidamada shisheeye wax warkooda ah lama maqal. goortii ay dawladda Soomaaliyeed ku dhalatay Kenya waxay soo saareen war-saxaafadeed ay ku taageerayaan dawladdaas, taasoo marag u ah in ururku uu weli nool yahay, ka hadalka arrimaha siyaasaddana uu weli danaynayo. haddaba maxay tahay sababta ilaa iyo haddeer ay uga hadli la'yihiin khatarta ay leedahay Itoobiya oo soo gasha gudaha Soomaaliya si ay dadka hubka gacanta uga dhigto? ma dhexdooda ayaan weli isku qancin sidii ay hal aragti uga qaadan lahaayeen khatartaas? mise sidani waaba ka aragti siyaasadeed oo ah idinku dadka ha horboodina, wuxuu xaalku noqdana wax ku darsada. sida taariikhda dhow lagu hayo, intii jeer ee ay ciidamada Itoobiya soo galeen gudaha Soomaaliya ma aysan soo saarin warmurtiyeed cad oo ay arrintaas uga xun yihiin. weliba xilliyada qaar waxay ku diganayeen dad ay ku tilmaameen in ay iyagu sabab u yihiin soo galista Itoobiya ee dhulka Soomaalida. marka hadeerna ma sidaasoo kale ay yeeli doonaan? jamaacatu tabliiq waa niman ahlu khayr ah, sidoodaba siyaasad lama tuso, meelay gashana ma dacaamiyaan, qaamuuskooda shaqana kama mid ahan. iyaga hadeerna laga sugi maayo in ay shir jaraa'id qabtaan oo ay arrimahaas ka faalloodaan. waagii uu socday jihaadkii Afghanistan ayay khuruuj u aadi jireen jiidda hore ee furinta dagaalka, iyaga oo isleh
dacwadda ku dhex faafiya xeryaha mujaahidiinta. niman kalaa jira oo ay dadku magac u yaqaanaan, iyaguse magac kale isu yaqaan. dadku waxay ugu yeedhaan salafiya jadiida, salafiyada cusub, laakiin iyagu jadiidiyada ayay iska reebaan oo salafiyaday la hadhaan. asalkoodu wuxuu ka soo jeedaa firxadkii itixaadka oo ragga hadda maskaxda u ah salafiyadan cusub waa isla raggii hoggaanka u hayay itixaadka oo xer cusub iyo xidhiidho cusub samaystay. dabcan ma lahan afhayeen, umana shaqeeyaan sida lagu yaqaan ururada dunida ka jira. waxayse leeyihiin wadaado hadalkooda loo qabto oo cabira fikradaha ay salafiyadu qabto. ma ahan niman siyaasadda gala, mana ay ogola in wadaad iyagoo kale ah uu siyaasadda matalo. waxayse u daayaan hadba madaxda dalkaas ka jirta in ay lahaato jeexidda hanaanka siyaasadeed. warkoodana waxay ku soo koobaan hala raaco amiir almu'miniinka. faragelinta cusub ee Soomaali lala damacsan yahay ayuu yidhi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, isaga oo qormadiisan sii wata. weli kama aysan hadal, waxaana suurowda in aysanba kaba mid ahayn howlaha haddeer u yaala. sooyaalka dhow waxaan ku haynaa dhowrkii jeer ee ay Itoobiya soo gashay gudaha Soomaaliya way ka aamusnaayeen. waxayse mar ka hadleen soo gelistii Gado, laakiin hadalkoodu waxa uu ahaa haddii Itoobiya ay afgooye soo gaadho waanu ku jihaadaynaa. waa su'aale, Itoobiya haddeer ayay afgooye u soo socotaaye maxaa u tala ah salafiyadan? aqoonta loo leeyahay salafiyadan haddii la kaashado waxaan lagu sugi doonin in ay ka hadlaan mustaqbalkan Soomaali ku soo socda. waxaan sidaas u leenahay dunida islaamka oo ay waxyaabo waaweyn ka dhacaan ayaysan waqti siinin sidii ay bulshada u tusi lahaayeen dhibaatada haysata. haddaan tusaale ku siiyo, shacabka Ciraaq waxay kula taliyaan in ay hoggaansamaan oo ay aqbalaan in laga adkaaday. waxay fatwoodaan in Iyaad Calaawi uu yahay xaakim sharci ah maadaama uu adkaaday. sidaas awgeedna ay waajib tahay in la adeeco oo qalalaasaha laga daayo. warka oo kooban, salafiyadan waa inay ugu yaraan noo caddeeyaan haddii ay qabaan in la raaco talada uu amiirulmu'miniinka Soomaaliya soo jeediyey oo ah in ciidanka Itoobiya la caawiyo. majmaca al-culamaa waa xertii aabihii baraaruga islaamiga ah ee Soomaaliya, Sheekh Maxamed Macalin allah u naxariistee. waa rag aan dayicin mas-uuliyadda diineed ee saaran. waagii Maxamed Siyaad dhaxalka ku gafay, xerta Sheekh Maxamed bay ahaayeen kuwii yidhi diinta yaan meel looga dhicin. hadalkaas awgiisna waatay u gudgaleen. intii jeer ee Soomaaliya lasoo farageliyeyna diidma cad ayay kala hor yimaadeen. duulaankan cusubna shir jaraa'id oo ay qabteen ayay kaga digeen khatarta uu leeyahay. allailehe culimo ku dayasho mudan iga dheh. ururadan kala duwan ee aan ka soo hadalnay waa qayb ka mid ah culimada Soomaalida. qaybo kale oo iyaguna muhiim ah ayaa jira. haddii eebba noo ogolaado wakhtigeeda ayaan falanqayn doonaa. waxaad odhan kartaa maxaa wadaadada Soomaaliyeed laga rabaa? sow kuwa mudaharaadada waaweyn xamar ka abaabulay, sow kuwa magacyo kala duwan ku hadla sida maxkamadaha iyo dalladda culimada. si aadan u khalad fahmin aan hal qodob kuu sheego. culimadaas aad sheegtay waa niman ka turjumaya mas-uuliyadda sida gaarka ah u saaran ee ma ahan kuwa ku hadlaya magac urur islaami ah. waxayse muujiyeen sida ay u dhibayso haadaanta bulshada Soomaaliyeed laga sii tuurayo. halkaas ayuu ku soo gaabiyey maqaalkiisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo qormadan kaga hadlayay islaamiyiinta iyo duulaan uu sheegay inay dalka Itoobiya ku soo qaadayeen Soomaaliya. waxaanu maqaalkaas baahiyey 21 February sanadkii 2005. tan iyo inta aynu maqaal kale oo ka mid ah maqaaladan soo qaadan doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.